بسم الله الرحمن الرحيم همبليو دمان أمد الصوماليات ميل والبا أي دنيا عالم كجوجان maanta waa maalintii gobolada waqooyi ee noqdeen dhul xor ah waa maalintii calan Soomaaliyeed laga taago dhul Soomaaliyeed oo xor ah waa maalintii abwaanti macada yiri sareeyo manusqaamow aan sidoo yahay eegne ka nasiib ka nasar 26 Juun 1960 qulubta ummadda Soomaaliyeed waa maalin ku weyn waa maalintii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen guumeystii ka soo duulay qaaradda Yurub muddo 84 sano ku dhowna ay guumeysanayeen haddaba walaalayaal xornimada ma ahayn mid ku timi si fudud waxa loo soo maray halgan dheer oo qaatay waqti aad u dheer aabayaasheen iyo awoowayaasheen ayaa u huray naf iyo maal haddaba su'aasha maanta aan ina isweydiino mudan xornimadii nafta iyo maalka loo huray aan rabo maanta inaan munaasabadan awgeed uga faa'iideysto aan isleeyahay maalin ay ka haboontaa ma jirto inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago waxaad ogaatiin qof walba oo Soomaaliya oo xayya waxa waajib ka saaran qarannimada horumarka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed taasoo ah waajibaadna wada saaran dhamaanteen iyo intii dagaaladii sokeeyo socday dhibaatooyinkii wixii aan iska haleynay ama dawladaha haleedo ama shakhsi ama shacab ha haleeyo inaan isaga garaawno ugu dambeyntii 60 sano kadib xaalka aan ku jirno iyo maanta meesha aan joogno maxaa uga bixi karnaa maxaana dawlad ku heli karnaa aniga waxa aaminsanahay waan soo dilnay waan soo dhibaateynay waan soo aragnay Soomaali inay kala awood badneen dagaalna aan xal ahayn sidoo kale shakhsi awood badan ama dawladda ku awood badnaado ama ciidan ku awood badnaado waxay rataba ha ahaato in ummadda Soomaaliyeed lagu maamuli karin awood shakhsiyadeed waa soo aragnayadana maantay 60 sano kadib dawlad nooc u baahanna waxa u baahanahay dawlad ku dhisan sharciguna sareeyo waxa u baahanahay dawlad ku dhisan saxaafadeedu xor tahay dhaqaalaheeduna xor yahay bulshaduna ay u siman tahay sharciga midda u baahana waa midaas dawlad walba aan dhisaynana waa inay sal u ahaataa ama bulsho ee ogashay bulshada Soomaaliyeed dawlad ee raali ka taayta waan soo aragnay waqti la ismuqooniyo ama dawladad muqoonida ama qof astaan qaran yahay waa soo arag laakiin maanta waxa u baahanahay meesha bulshadeena maanta ka aaminsanta astaantu qaran inay tahay qofka talada haya inaan u bedelo astaantu qaran inay tahay sharafteena iyo dawladnimadeena waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto munaasabadan dadka hadda talada dalka haya waxaan rabaa inaan talo u jeediyo taladaas oo ah maanta dalka waxa nooga muuqda in dib u dhac maanta dalka waxa nooga muuqda inaad rabtiin wadadii Soomaaliya ku soo burburtay inaad qaadiin waxaan taladeeda si aan talo u jeedi lahay ama taladeedu ahaan aan ku saleynayaa madaxda hadda joogta ama xukuumadda hadda talada dalka ka talida waxaad ogaataan maqoonin shacab ama aniga amarkayga kaliya shaqeynaya ama aniga astaan qarana in Soomaaliya ka soo daashay Soomaaliyana inta halkaan dhigtay maantay leega ma rabo ama ma rabno maantay ma dhaheeno wixii mandatekiina ahay qabta ma dhaheeno maxaa ka qabateen amnigii ma dhaheeno maxaa ka qabat maxaad u laakiin waxaan leeyahay ama maanta waxa inga rabno waxay tahay inaad noo qabataan doorasho xor ah si xorana loo qabto doorasho shakhsi u danaaninayn ama shakhsi dan ugu jirin
doorasho dani ugu jirto shacabka Soomaaliyeed u baahanna waa maasantihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay dunida caalamka joogaan waxaan leeyahay insha Allah sanadkan maalinteeda kale inaan ku xusi doono annagoo mideysan annagoo dawlad haysana annagoo maaragtay shacab mideysan ah annagoo wixii naga soo halaabay soo saxna ku xusi doono aad u maasantihiin dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan